ciidamada ICE ayaa rabaan inay dadka guryaha ku jabiyaan hadda ka bacdi kana la soo baxaan. haddaba dadkaas ay rabaan waa kuwama. qaarta meel baa joogtaa salaamantiina maxaan faarax. qoraal laga helay ICE memo ah. qoraalkan waxaa faafiyey ICE ka dhex tirsan oo whistleblower ah ayaa joornaalka weyn ee Associated Press u diray. Associated Press iyo dimuqraadiga senatare ka mid ayaa qoraalkii marka helay markii dambe. qoraalkan waxaa la qoray bishii shanaad sanadkii tagay 2025. qoraalkan wuxuu sheegayaa ICE sargaal ka tirsan oo sare inuu qoraalkan qoray memogan kuna amray saraakiisha kale ICE iyo ciidamada ICE inay hadda ka bacdi guryaha ku jabsan karaan qof alla qofkii haysto removal deportation keeskiisii maxkamadana uu ku dhacay laguna amray waddanka Mareykanka iskaga baxo. marka waxaa la yiraahdaa qoraalkan waa administrative warrant. sargaal ka tirsan ICE ayaa qoray. sargaalka ICE ka tirsan waa qaada tusaale ahaan gurigii qofkii maxkamadda ay ku tiri waddanka isaga bax ayaa baryada toqada lagu magaliyo xoog baa lagu gelina lagu jibinayaa waa lagala soo baxayaa waddankiisa ayaa lagu celinayaa. laakiin sharciga Mareykanka wuxuu sheegayaa waxaa guri qof geli kara kaliya waraaq ay uu saxiixay judge maxkamad judicial warrant ayaa la yiraahdaa. marka ICE hadda ka bacdi waxay leedahay aniga judicial warrant oo maxkamad waraaq maxkamad judge saxiixay uma baahniba. sargaal ka tirsan ICE ayaa administrative warrant saxiixayo dadka guryahan ku jabinaya wixii removal u qoran oo keeskooda immigration ku dhacayna waddanka ayaan ka musaafurinaya. marka dad badan ayaa waxaa la arkaan sharci maahan waa sharci daro waxay ICE wado. waan ognaa ICE de sharci maba ku dhaqantaba. dadka Mareykanka ay dishaa dadka Mareykanka ay xirtaa dadka xataa maxkamadda keeskooda ku dhicin oo removal ku qorneen ayay xoog ku wadataa. waxaa la qiyaasay 75,000 oo qof oo immigrant ah oo removal haysan inay hadda xireen. 75,000 oo qof inay xireen oo removal haysan maxkamadooda sugayay canshuur bixiye ahaa criminal ahaan dad shaqaysta ahaa ay waddankooda ku musaafiri u celiyeen. marka ay sharci kuma dhaqanto. haddii sharcigan ay ku sii socotana waraaqdan administrative warrantigana waxaa laga yaabaaba dadka xataa keesaskooda sugayay oo criminalka ahaan oo removalka ahaan inay xirto. marka khiyaarta ha la is ilaaliyo. ICE waxay u soo dhigatay inay guryaha jabsata xirta dadka ha laga taxadaro meel